أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ليال مرك أجوهره واندين سلامي سلام قالي أيان إذين سلامي سلام تاسيتو أو إلهي ونبي عليه الصلاة والسلام ويري قفكي أو السلام عليكم ده توان أجر بوليه هاي قفكي دم يستيرنا صدق أجر يوليه هاي سلام تاسيتو أو قالي أو كالجعل أو قلبي كجرا أيان إذين سلامي سلام تاسيتو أو وناكسن أو قلبي وعن أيان إذين سلامي سلام تاس كدب xadiiskan ayaan hal mar idin meerinaa xadiiskan kadibna waxaan jeclahay inaan barnaamij muhiim ah oo gaaban aan ka hadlo xadiiskaas waxa waaye nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum mi idin tusaa ama mi idin sheegaa shay haddaad samaysaan isku jeclaanaysaan salaanta faafiya ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaa xadiiskaas ku cad salaantaasi haddaad faafisid in uu imaanayo kalgaceel oo dhab ah oo walaaltinimo imaanayo maanta muslimiinta adduunka joogaan way kala tagtagsan yihiin waxaad arkaysaa waalid iyo wiil walaal iyo wiil iyo qaraabo oo kala maqano oo xiriir aan lahaynin waxaana u sabab ah salaantii ayaa meesha laga waayey salaanta hadday badato waxaa badanaya ajarkaaga ayaa badanaya waxaa badanaya kalgaceel iyo walaaltinimadii ayaa badanaysa salaanta kadib waxaan rabay maanta inaan ka hadlo mowduuc gaaban oo ka hadlaya mowduucaasayto maxaan ku dhahaa qur-aanka maxaan ku dhahaa wiilasha ama caruurtaada ama walaalahaaga ama waalidka naftirkiisa inuu ku dadaalo sidii qur-aanka uu akhrisan lahaa maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wassalaam xadiis ayuu wuxuu yidhi idaa maata ibna aadam inqataca camaluhu ilaa min halaath ibna aadanka hadduu dhinto camalkiisa wuu go-ayaa ilaa iyo 3 shay mooye haddaba ogow haddaad dhimatid camalkaaga meeshaas ayuu ku egyahay laakiinse haddaad 3 shay lagaa helo camalkaaga wuu soconayaa ilaa iyo khabrigaa markaad dhimatid ayuu soconayaa ilaa iyo wuxuu soconayaa qiyaamada aad ku aadid ma go-aya camalkaaga wuu soconayaa waxay la mid tahay adigoo nool oo kale maxaa waaya 3daas camal haddaba ma idin sheegaa si fiican u dhegaysta nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi sadaqa aad bixisid sadaqadaasayto oo soconaysa oo aan dhammaanaynin iyo cilmi oo adiga aad baratay oo dadka ku intifaacdid iyo midda saddexaad waxa waaye wiil wanaagsan aad dhashid oo wiilkaasayto kuu daceeyo marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay marka sadaqa jaariya waa maxay sadaqada jaariyada ah sadaqada jaariyada waxa waaye ceel biyo ah haddaad qodid ama maxaan ku dhahaa masjid haddaad dhistid wax oo aan go-aynin aan dhammaanaynin oo ilaa iyo qiyaamu saaca uu soconayo ajarkiisana wuu ku soconayaa laakiin hadda hadafkeyga waxa waaye inaan ka hadlo cilmun yuntafacu bih aw waladun saalixun yadcuu lah cilmi oo lagu istifaado iyo walad saalix ah oo adiga kuu daceeyo haddaba waxaan isweydiinaynaa dadka qurba joogtayaasha iyo waxaan dadka kale soomaalida dhan maalmahan waxaa ka dhacay qur-aankii barashaalkiisa ayaa laga haajiray mahjuur ayaa lagu noqday laakiinse maxaa wiilkaaga ama caruurtaada markaa dhimatid oo saalixa ah oo kugu daceyn karo oo docodiisa soconaya oo aan dhammaanaynin wuxuu kugu daceynayaa haddaba wiilkaaga markuu yar yahay 7 jir iyo 6 jir markuu yahay inaad qur-aanka geysid dugsi aad geysid meel walba haddaad joogtid haddaad rabtid yurub joog haddaad rabtid soomaaliya joog haddaad rabtid afrika joog waxaad caada ugu dhigtaa canuga markuu oo maxaan ku dhahaa oo caqliyeysto ama markuu oo ma aragtay 4 jir uu noqdo dugsi qur-aan geeyo awooyadeena sidaas ay samayn jireen marka qur-aankaasayto wax badan bay u fududeynaysaa marka ugu horeeyo intuu baranayo adiga ayaa ajar kugu socdaa marka labaad waxaa imaanaya wuxuu akhriyane ajarkiisa ayaa kuu socda marka saddexaad hadduu dad barane ajarkiisa ayaa kuu soconaya marna dhammaan maayaan ajarkiisa marka walaalayaal aan jeclahay hooyo iyo aabo iyo wiil iyo dhammaan waxaan idin sheegayaa meelaha maxaan ku dhahaa sidaan wada ognahay waxaan ku dadaalnaa horumar adduunya sidii lagu gaari lahaa islaam walba waxay leedahay wiilkeyga waxaan rabaa doctor inuu noqdo ama engineer inuu noqdo
islaam walba sidaas ay leedahay. laakiinse waxaad ogaataa hal shay ogow, dictoor hadduu noqdo wiilkaaga ama gabadhaada dictoor hadday noqoto maxaan ku dhahaa qur-aankana aan baranin, islaamkana aan baranin, salaadana aan baranin, waajibaadkiisa iyo arkaantiisana aan baranin, ilaahayna sifaadkiisa aan baranin, nabiga calayhi salaatu wasalaam magaciisa saddexanne aan baranin, iyo magaciisa iyo nasabkiisa aan baranin, wallahi dictoorkaasiyta laguma istafiidayo. waqti oo lumay ayuu noqonayaa. dictoor oo arrin adduunyo yaqaano oo aakhiradiisa iyo islaamnimadiisa iyo salaadiisa waxaan ka aqoonin, taasayto waa baaba. waxa waaye hal oo bacaad lagu lisay waaye. marka walaalayaal, hadafka koowaad aasaaska ah waxa weeye in maxaan ku dhahaa markaa dhimatid inaa wiilkaaga uu ku duceeyo saalix uu ku noqdo, oo ilaahay uu tugu salaada markuu dukanayo, kadibna uu dhaho waalidkeyga u naxariiso, qur-aanku akhriyana kuu socdo. waxaad ku gaari kartaa asagoo yar ku dadaal inuu qur-aanka u xifdiyo ama u akhriyo, macallin fiicanna u geey. maxaan ku dhahaa waxaad importance siisaa ama priority siisaa waxbarashada islaamiga ah, qur-aanka sii. markaad saas samaysid ayaa insha allah wiilkaaga wuxuu ku noqon doonaa wiil wanaagsan oo beri dambe laga istafiidayo, bulshada communitiga soomaalina ay ka faa'iidayaan, dadyahooga kalena ay ka faa'iidayaan, dalkan uu faa'iideyn karo, iyo wuxuu noqonayaa wiil oo maasha allah adigana aad ku faani kartid, oo qiyaamana ilaahay agtiisa shafaaca kuu qaadi doono. marka beryahan waxaa batay dadka waalidiintii markay la qabsadeen dhulalkii oo maxaan ku dhahaa oo qalaadka ahaa, nidaamkii markay la qabsadeen ay qur-aankii iska ilooween. qur-aankii waxay la noqotayba wax oo kitaab oo ma aragtay maxaan ku dhahaa guriga lagu xijaabta, ama wax meel la iska saarta markii oo dood iyo wax yimaado, ama markii arrimooyin muhiime arrimo bulsho markay timaado in la furo oo la baarbaaro ayay noqotay. laakiinse waxaad ogaataa qur-aanka saaxiibkiisa adduunyo iyo aakhiro inuu ku liibaanayo, horumarna uu ku gaarayo, waalidkii ku dadaalayna inuu ajarkiisa u soconayo aakhiro iyo adduunyo. marka walaalayaal, waxaan idin sheegaa anigoo qalbigayga aan jeclahay inaan ma aragtay walaalahayga waxa aan ku fiicanahay aan u sheego. waxaan leeyahay qur-aanka ha lagu dadaalo, ilmaha in la baro, in kow ahmiyad looga dhigo in qur-aanka ay xoog saaraan. waxyaabaha kale dhan way u fududaanaysaa. markaas qur-aanka qofka hadduu barto ama hadduu ku dadaalo ama hamigiisa u yeeshto ama macnihiisa u barto ama tafsiirka iyo waxyaabahaasayto oo diinta ah uu ku dadaalo, canugaaga wuxuu noqonaa cunug oo waxdaaniyatillaahi, ilaahay waaxidnimadiisana yaqaano, canug oo aan dhumaynin, canug oo maaragtay wadada saxsan uu qaadayo, canug oo maaragtay adiga waxa kaa qaldan adig waalid aad tahay kuu sheegayo, kuwaaninayo, wanaag kuu sheegaya, dadkan wanaag u sheegaya, tarbiyadiisana way wanaagsanaanaysaa adigoo u sheegin tarbiyadda aan barin ayaa qur-aanka barayo. qur-aanka maasha allah maxaa ka wanaagsan, maxaa ka macaan badan. waad aragteen markaa qur-aanka aad akhrisid ama markaa lagugu dul akhriyo raaxada ay leedahay. macnihiisa haddaadan garanayn xataa waad ku raaxaysanaysaa, waad fahmaysaa. ugu dambeenna waxaad ku dadaalaysaa inaad xooga saartid qur-aankaasayto. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ku khatimayaa xadiiskan, wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacalamuhu. waxaa idinka khayr badan oo waxaa ugu khayr badan idinka akhyaarsan oo ugu khayr badan bulshada qof qur-aanka bartay oona dadka baray. marka ilaahay hanaga yeelo dadka qur-aanka bartay, dadka barayna ilaahay hanaga yeelo. walaalayaal, insha allah taasina fikrad iyo waano ay iga ahaatay oo walaalahayga aan u baahday inaan u sheego. waxa wanaagsanne waa laisku sheegaa. insha allah aan ku dadaalno arrintaasayto, aana insha allah caruurteena wanaaga iyo masjidka iyo dugsiyada aan geyno, aan u horkacno. wabillahi towfiiq. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.